السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نبض إذا لحانتين بميل كستو ضافها دونيدات كتشوكتان كسو دوادا برنامج كيني فانكا يسو انتا تطوبات كان وحا برنامج كينا فانكي يسو انتا كومرتيا هيساغا عانكا codka iyo siiqada hadba sare iyo hoos isu dheelitiraya darbiyada qalbiga sida mawjadaha u garaacaya dareenka ka dhasha marar badan dhegjeelaysiga kasakow waxaabay naftu odhanaysaa yaaba ku horkeena sidoo kale waa mulaxamayste si karti iyo xirfad farshaxanimo sugaaneed ka muuqato u xardha ama u laxameeya midhaha iyo heesaha والدكيد مدو فري وقدق حمانو داينو هانوشو تلقى فقونيو دون حرير باتاي وحبيان كسي ديراني aan idin hor keeno cabdiyare waxaad waayataaliso waaye lahaataba wadmiyuu ku daayaa kaaxishooda wadna aan baqayn baad igu waabinayso weelaan kulaynba shubo ileedahay hoo durduuro fankii muddada gaaxsanaa oo maraqa lagaaga furay waa tahay marka hore waxaan kugu soo dhaweynayaa cabdiyare barnaamijka waanan kaaga mahad celinayaa inaad iga aqbasho ama aad kasoo jawaabto taageerayaashaadii ku dalbaday inay barnaamijkan marti ku ahaadaan ama aada la wadaagto sugaantaada. horta walaalkay aad baan kuu salaamay ummadda Soomaaliyeedna aad baan u salaamay horta ilaahay baa mahad iskale marka koowaad marka labaadna adiga ayaan ku mahad celinayaa oo saaxiibkay qaaliga waxaanan hadda aan u malaynayaa fanka iyo suugaanta inaan hadda aan cagaha kula jiro diyaarna aanu ahay inaan wax badan aan ka hadlo haddii rabbigu uu qadaro insha Allah aan iskuna dayo inaan waxyaabo badan oo aan hore u soo dhaafay oo ka soo gudbay inaan dib xasuusto waana fiican tahay inaan noloshayda hore aad aan uga soo hadlo. waa tahay cabdiyare bal nala wadaag geedi socodkaagii fanka iyo hababkii kala duwanaa ee aad soo martay fankaagu soo maray iyo saad ugu soo biirtay. horta anigu halka aan ka bilaabay waan yaraa markaan arkay aan isogaaday waxaan iigu jiraa inuu fan yahay markaan 15 jir gaaray laakiin anigoo 10 jir ah ayaan u iman jiray fanaanintayga waaweyn taasoo aan ugu iman jiray meel guri oo ayagu ay fadhiistaan ama ay ku qaylaan waxaan u soo iibin jiray adeega yaryar ee u baahan sida biyaha sharaabka oo kale waxaan u soo iibin jiray aniga ugu yaraa wallahi yarxamo dad aad ii jecel way ahaayeen oo maalinta aanay arag horta ma beenaysan jirinba ilaa iyo markaan u imaado yaa kamid ah fanaaniintaasi cabdiyare waxaa kamid ahaa فيصل عمر مشتاق الله يرحمه محمد أحمد والله يقانه كل الله يرحم الراحمين عبد الناصر معلى عيديد أحمد سليمان بودي مصطفى معلن عيديد محمد محمود إيجا والله يقانه بوسي انت أسبا أورتا أيقو يآد باحتران إيجا مضنايين دادك آد كإيش الله ويهايين ما شاء الله تدمتين وحلي إلهي نحرس دي جناك ورابي قبرك هو النورو انت النور وحلي إلهي عمرك هو بركة يا عافمات كبا goormaad cabdow ogaatay in ay hibada faneed ay kugu jirto ay naftaada ruuxiga ah ay hogaaminayso. wallahi su'aashaas waa su'aal fiican walaalkay waxaan ogaaday in ay igu jirto ama dhowr sano kadib markii aan ka maqnaa dadkii aan asxaabta lahaa ee iga waaweynaa ee jeclaa waxaanan iska baran jiray markaan yaraan iyaga u iman jiray mar la igu dhahdo doorkiisa waxaan soo baxsan jiray markaan iman jiray fanaaniinta u iman jiray
kadib waxaan iska tuman jiray darmoogada baasha la dhaha labada lugood lagu qabsado tuma marka kamanka la tumanayo. horta markay igu dhalatayna waa markaan adigu dhowr sano meesha aan ka maqnaa oo aanan tegin oo ii suurtoobi weyday inaan wax barto iyo inaan xaggan kala kadib waxbarashadaydii waan u yaro go-ay. waxbarashadaydii markaan iska watay ayaan dhowr sano kadib aan haddana dib aan u bilaabay inaan wixii hubigaygu ahaa ee aniga igu jiray ee igubayay inaan halkii kasii wado. waa tahay cabdi yare, yaa kuu bixiyey magacan mahadhada reebay ee waqti xaadirkan aada sidateed ku caanamaashay? magacan cabdiyare waxaa ii bixiyey waa faysal cumar mushtaaq ilaahay u naxariiste iyo fanaaniinta waaweyneyd aan kusoo tiriyey maasha allah. waxaana iigu oran jiray ninkana bedelayaa tahay. alxamdulilah kadib ilaahay dhowr sano kadib ilaahay wuxuu iigu beegay haddana abwaan aad qaali igu ah oo aabbahay ah oo macalinkayga ah oo saaxiibkay ah. waa aadan tarabi jaamac. aadan tarabi ayaa ilaahay igu beegay maasha allah. heestii ugu horreysay uu ii sameeyey waxay ahayd milic ka mahadgalo kama hoydo dhaxama waktiguna dhanbuu iga dhaafaya. waa aadan tarabi jaamac. ilaahay cimrigiisa ha barakeeyo iyo caafimaadkaba. aad iyo aadna waanu jecelahay. ilaahay baana mahadleh oo igu beegay nasiib ii siiyey inaan erayo uu leeyahay inaan qaado maasha allah. ilaa iminkana ay garab taagan. milic ka mahadgalo kama hoydo dhaxama milic ka mahadgalo kama hoydo dhaxama waktiguna dhanbuu iga dhaafaya. ifka dhegar ma geline maxaa dhibay naftaydii dhalinyaroy dhool baxay la moodi wadnahatii ku dhararnay aan kala dhul sugaynaa nala kala dhex galay. waa tahay cabdi yare, fanaaniin badan oo waaweyn ayaad sheegtay oo aada la soo qaadatay waqti wanaagsan ka hor intaanad fanka kusoo biirin. yaad ku dayan jirtay oo hidaraac faneed ku ahaa? wallaahi laakiin fanaan aan ku dayan jiray ama aan isleeyahay oo sidiisoo kale magarasa gaad ma jirto mana garanayo. laakiin walaalkayo fanaaniin badan baan aada u jeclaa ole way tirsan yihin waa dhowr fanaan welibana heesahooda mid kasta heesuu leeyahay waan aad baan u dhegeystaa oo ilaa imika waan dhegeystaa. ilaahay ha u naxariista. qaarna way dhinteen qaarna way noolyihiin kollii. waxaa ka mid ahaa dalxa. waxaa ka mid ahaa maxamed axmed kulic allah yarxamo. waxaa ka mid ahaa qalinle allah yarxamo raaximiin. waxaa ka mid ahaa maxamed yuusuf isagana ilaahay ha u naxariisto. maxamed yuusuf hees uu lahaa horta aad baan u jeclaan jiray. ilaahay naxariista jannaa ka waraabiyo. markaan isku kaaleeyey miyaad dhibtay orseeday eedayda inaad jartaana eedayda inaad jartaana miyay kula hawl yaraatay. heestiisa aad baan isaga u dhegaysan jiray. ilaahay naxariista jannaa ka waraabiyo. dalxa dadku in badan baan aqoon baan u malaynayaa anoo yar laakiin ayaan dhegaysan jiray. waana heestii igu horreysay ee aan dhegaysto ama dhagahayga kusoo dhacda.
shaxdaagee la daaqo shibraa lagu dareersho meeluu roob shanshada dhigay dhex jibaaxinaaye oo shila uu korfaysto midib shiliiladeedii asarkii shilbaysto carshabeelinayse شانكرون هاوينك عايشك وحاني راسبة مريان كوبو شغري شانكرون هاوينك عايشك وحاني راسبة مريان كوبو شغري شركانك أمانة شيطانك الماما شركانك أمانة شيطانك الماما مركياني سلا شوري شكي استكليغي maxamed axmed kule waxaan ka taageeri jiray isagana hees ama aan aad u jeclaan dhegaysan jiray doon isagaba taageeri jiray ilaahay naxariista jannaa ka waraabiye jacayl biri ma goyso biyo kama mayra sow 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 iguma beeraba suba kabuiyaba ودين جعل بريد ما كويسو بيوكا مميرا dadka waxaa ka mid ahaa isaguna oo aanan ilaawi karin isaguna muuse ismaaciil qalin leh waxaa ka mid ahaa heestiisa isagana aan taageeri jiray ama aan aadka iyadana u dhegaysan jiray ubaxoo dilaacay dawadii naftayday haween taan ka doortay darmantaan jeclaayey hedhowaan ku diraya degmadaan ku gaarsiin walagu dabaaldegi durbana lagu tuumi ayaa isagana ka mid ahayd inkastoo aanan bartooda dhigi karin gaadhsiina karin laakiin anaa jeclaa oo nin kastaaba shimbir walbaba codkeeday dhawaaqdaaba hore loo yidhi moogtay marka waxaan leeyahay ilaahay qabriga ha u nuuro qabriga ha u qaboojiyo naxariistii janno ilaahay ha ka waraabiyo waana dad aad iyo aad igu qaali ah haddaan fanaanahay wayna kaa aad baan saaxiibkayga qaaliga kuu salaamay darmantaan jeclaay hedhowaan ku diraya degmadaan ku gaarsiin waa lagu dabaaldegi durbana lagu tumi waxa iga dardaarana ducaduma noqotee dariiqanu qoraxduna dallaalimo dadku aabbahaa iyo deeqay hooyada noqoye waa tahay cabdi yare haddii aynu jalleecno dhinaca madadaalada ama heesaha maxaad la wadaagi lahayd ama aada usoo qaban lahayd taageerayaashaada barnaamijkan ku xidhan waan ku roonahay kuu raxleeya waadii riiqda waadii rabashtaa dhisma reer baanu rafaada adna riyadaad hadbaa rafacda wayna kaa bulshada taasaan soo qabanaya kolley dad badan baa iska jira oo dhibkaasi haysto waa qof adiga laftirkaaga aan ku weydiiyey qofka aadka kugu qaaliga ah iyuu noqonino qofka kugu wanaagsanay wax walba magaranaysaa kuu qabta qofka xitaa ku diiqadaya agtaada qaali buu ka yahay kaas waa daydayaysaa beri ka maalin haddaad weydo oo waxaad raadinaysaa niyo dhibkiisii iyo rabashkiisii iyo foodaduu kugu hayay iyo waxaad si odhanaysaa waa niyo ninkii caruurta kii halkuu ka dhacay miyuu dhintay talow
haddana waxaad odhaysa waa naga daniyo markiis horeba rabish miidhan buu ahaa waad xasuusatay la soco markaa taasaan ayaan ugu talagalay rabidaadaan raaligeliyaa adna rubadaad ablay ruubtaa markaad roorteed sii ruclaysana rarankaagii kama raystee rabshadaadii waabaan raajaa waan ku roonahay kuu raxleeya waadii riiqda waadii rabashka dhisma reer baanu rafaada adna iyada adbaana facda hoy 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 waan ku roonahay kuu raxleeya waadii riiqda waadii rabashka dhisma reer baanu rafaada adna iyada adbaana facda rabidaadan raaligeliya adna rubadaad ablay ruubta rabidaadan huy raaligeliya adna rubadaad ablay ruubta rarna dhabarka irasaysa rarna dhabarka irasaysa hoy rabidaadan raaligeliya adna rubadaad ablay ruubta rabidaadan raaligeliya adna rubadaad ablay ruubta rarna dhabarka irasaysa rarna dhabarka irasaysa markaad roortee sii ruclaysana kolkaad roortee sii ruclaysana rarankaagii kama rayste rabshadaadii allatee waaban raajaa riyadaad rafaacda dad badan baa malaha dareenkoodiiba rafaacay dhuuntii ableydii jacaylka mar walba qalbiga saaran ha laga ilaaliyo bal yaan lagu degdegin waa tahay cabdiyeere fanaaniintii hore waaweyneyd baad soo gaadhay fankii horena waad soo gaadhay fankan casriga ahna waad ka tirsan tahay fanaan baad tahay maxay ku kala duwan yihiin ama faraqa udhexeeya muxuu yahay fankii hore iyo fankan dambe shimbir walibay taalkiibu duulaa lad walibaana taageed bay socotaa kuwii hore waa fanaaniin bay ahaayeen laakiin kuwan dambe hadda waktigoodii baa jooga kuwii horena waktigoodii way soo qaateen differenty u dhexeeya fankan iyo fankii hore isma lihi wax weyn baa u dhexeeya laakiin waxa u dhexeeya waa da iyo darajo kaas way ka waaweynayeen khibrad badanna way u lahaayeen fankaa berigaa taagnaa xagga iyo dowladdii hore dowladdan hadday noqotay iyo fankan hadda iyo dhalinyartan waxay qaadanayaan waktigooda wakti kastaana dad buu leeyahay maaha inay isku kaa mid noqdaan waktigii hore lasoo dhaafay iyo waktigan waa casri cusub wallaahi aad bay u fiican yihiin kuwii horena aad bay u fiicnaayeen oo waktigooday qaadanayeen inkastoon yarahay anoo yar haddana labadoodaba aan soo arkay kan aan hadda ku jira kaanaan markaa aan jeclaan jiray inaan wax barto waana yaraa caqligaygu yaraa da-daydu way yaray sidaan hadda u fikriyay berigaa umaan fikrayn haddana alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadda kan lagu jiro iyo fankan waa mid aad iyo aad u dadaalaya dadka fanaaniinta ee welibana halkan ila jooga aada isku jecelyihiin koox waa la sheegaa laakiin waxa gunta haddii loo dhaadhaco waxaad arkaysaa kalgacayl fara badan wanaag walaalnimo wax wada cun kaasi waa reer hebeliyo waa kooxdaa iyo inaga daaya iyo waxaa ma isticmaalaan waxaad u tahay walaalkii waxaad u tahay bahadiisa waxaad la tahay magla bixiye waxaad la tahay ehel iyo qaraabo waxaan leeyahay ha waaro oo ha jiro because xumaanba kuma arkayo waa tahay bal aan soo qabto dhinaca madadaalada waxaan u hibeyn doonaa heesta hablaha bal cabdi nala wadaag qisada heestaa sidee ku timid heestan anigaa jeclaaday abwaan da-yarna aad iyo aad baan u weydiiyey ii samey baan ku yidhi welibana markaan jabuuti ka soo noqday dowladda jabuuti madaxweynaha ismaaciil cumar geele iyo marwadiisa baan aada u salaamayo waa dadaan walaalanahay oon isku dhignahay oon isku dadnahay oo aan isku deyrnahay oon isku dhaqannahay oon isku diinnahay weli aad iyo aad baan u salaamaya oo laftirkooda aan usoo wado hablahooda ama hablaha iyaga jabuuti hees ammaan ah oo hablaha jabuuti ammaanaysa insha allah sidoo kale kama maqni puntland kama maqni xamar cadey intaba hablaha aniga ila dhashay ee soomaaliyeed meel kastoo ay degan yihiin inaan usoo heeso waa qasab
heestan hablaha Hargeysa waa mid aniga igu dhalata. Kadib abwaankan weydiiyey, waxaan ku yidhi abwaan waxaan u baahnay hees hablaha ammaanaysa. Wuu ii sameeyey. Saciid Maxamed Cilmi Talasame ayaa la yidhaahdaa, waa abwaan daa'yar oo aad iyo aadna aan saaxiib u nahay. Wuu ii sameeyey. Markuu ii sameeyey kadib waan la xameeyey. waxaa ii tumay Maftuux Maxamuud Ducaale, waa macalinka kooxdayada ama musicianka kooxdayada oo nin aan aad saaxiib u nahay. waa Cadceed, isagana aad baan u salaamayaa. gacantiisana waan jeclahay, dadnimadiisana waan jeclahay. isagaa ii tumay muusiga. hablaha Hargeysa hanaanka qurxoon, hablaha berbere hawraarta macaan, hablaha burca ee maalka sharfo, hablaha awdale gayaan hiigsado. wataa sida hogoldeed hortay dhibico dhulka habeeniyo haysay sitimaa. sida hogoldeed hortay dhibico dhulka habeeniyo haysay sitimaa. waxaa hargala waxaa hurdalada waxaa horumara ninkay lahayaa. hoy waxaa hargala he waxaa hurdalada waxaa horumara ninkay lahayaa. hablaha Hargeysa hanaanka qurxoon, hablaha berbere hawraarta macaan, hablaha burca ee maalka sharfo, hablaha awdale gayaan hiigsado. hablaha Hargeysa hanaanka qurxoon, hablaha berbere hawraarta macaan, hablaha burca ee maalka sharfo, hablaha awdale gayaan hiigsado. hego 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 heega muuqiyo hado bilcanida. hablaha yagu haybad bay u yeesheen haweenka dunidoo dhanba u hambaliyeeye. hambalyo laydin hibeeye, hambalyo laydin hibeeye, hambalyo laydin hibeeye, hablaha yago laydin hibeeye. hego 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 heega muuqiyo hado bilcanida. hablaha yagu haybad bay u yeesheen haweenka dunidoo dhanba u hambaliyeeye. hambalyo laydin hibeeye, hambalyo laydin hibeeye, hambalyo laydin hibeeye, hablaha yago laydin hibeeye. ugu dambeyn Cabdi Yare, markii aad fanka kusoo biiraysay maxaad ku haminaysay inaad gaadho, mise gaadhay hamigaagii, mise weli waad raadcaynaysaa oo waad ku daba joogtaa? horta wax daba oradi maba jiraba. qof kastaana hubbigiisu halkuu rabo 1 iyo 2 isagoon ka gaadhi kama haro. teeda labaad, fanku waxaan fanka lagu dhahaa waa hibo, dadina way iska baadhaan. waa hibo ilaahay uu bixiyo oo ma garanaysaa qofka bini'aadanka ah. qof kastaba ilaahay wax buu siiyaa. anu isma lihi fankan hadda jira innaba 1 kama taagnid ama 2. taana waxay cadaynaysaa waxaan jecelahay inaan mar walba dadaalo. waxaan jecelahay inaan mar walba inaan bulshada wixii saameyn ku ah qalbigiisa ma garanaysaa dhaawac u geysta ama jacayl ha noqdo ama wax kaloo dhibaya ha noqdo, inaan anagu ka hadalno ayuun baan u taaganahay. dadkii horena ay u taagnaayeen. waxa marka ay qalbigaaga ku jirto ay kugu dhalato oo adagu waxaan ku leeyahay hamigaagu uu yahay fan. isma lihi qof hankiisu fan yahay ama ma garanaysaa himilada uu doonayo inuu gaadho inay tahay inuu ka noqdo heer sare ka hadha maba dhacdo. fanku iskuul maaha lasoo galo oo waxbarasho loo soo dhigto ama aqal inta lasoo galo haddana laga noqonayo. fanku waa hibo, say dadkii horeba u yaqaaneen. fanku waa talanti qof ilaahay uu dhammaystiray, maaha wax lagu ciyaaro. waxa weeyaan muraayad bulshada een xumaantana ka reebi karta, wanaagana fari karta. dal waa lagu dhisi karaa, waana lagu dumin karaa, beenna maaha. dirirku horiyo dayr curatahi waa beri deeq ilaahayo timi kala ubax ku yaaliyo. dirirku horiyo dayr curatahi waa beri deeq ilaahayo timi
tala ubax ku yaaliyo duhur ii cabda tahay dumar ugu midroone duhur ii cabda tahay dumar ugu midroone haybad loogu daray qurux waxa dunida yaaliyo dunya maalba loo quro la daryeelada tahay midardaaran raacado walidkeed mid uu faray uga diga xumaano daynuu hanuunsho deelqaad faqooniyo dun xariiraba tahay deegan barwaaqa diririyo hillac maray daruruhu ku horeen adiga la dooro darajada wax siinde dahab muunadiisiyo midla daawada tahay waa tahay daawadayaal intaasina waxa aanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii fanka iyo suugaanta oo uu toddobaadkan marti ku ahaa cabdiyare oo aanu uga mahad celinayno wakhtigiisa qaaliga ah ee uu inala qaatay ama inala wadaagay qeyb ka mid a fankiisii waana mahadsan yahay aad iyo aad baan kuu salaamaya walaalkay wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu tan iyo inta aynu ka kulmi doono barnaamijkan oo kale ah waa maxamuud carab oo idinkaga tegaya sidaa iyo ammaan Allah